dhibaatada meel ka dhacda waxa halkeedu yaal meesha ka dhacda waxa qalad ah oo nasiib daraa meel Nairobi wax ka dhacay in laga falceliyo garowe oo nabada arrintaas iyada waxa lagaga ballamay oo la gooyay ciidii falka ku shaqo lahayd akhlaaqna ku fiicnay dadka intay meel kale ka soo qaataan noocii ku deesho u sameynaya waxa way wax fiican ma wax la yeelay isugu timi u timi arrintan inay ka hadasho oo laba dhinac u hadlaysay oo dhammaantood si quruux leh wax raga badan uga hayashay arrintaas meesha ka tagtay waxaynu ognahay dhibaatada meel ka dhacda waxa halkeedu yaal meesha ka dhacda meesha ay ka dhacday meel kasta waxay leeyahay maamul waxay leeyahay dad waxay leeyahay dawlad wax ka qabata waxa ka dhacna ayay yaalin meel kale toogalin ma jiro waxa qalad ah oo nasiib daraa meel Nairobi wax ka dhacay in laga falceliyo garowe oo nabada garowe hadda laba bilood hal ma joogaan laakiin Soomaali oo dhan baa joogta ummad kale oo Ilaahay inoo ku noosho waxay u baahan tahay nabad in lagu noolaado in nabadda laga shaqeeyo in dadku walaal yahay oo kuwa noolaado in horumar laga shaqeeyo wax fiican laga shaqeeyo wax in laga shaqeeyo waxyaabaha tip-topka iyo balayaas laga duubayo oo aan islaamnimada ku fiicnayn akhlaaqna ku fiicnayn dadka intay meel kale ka soo qaataan noocii ku deesho u sameynaya waxa way wax fiican ma wax la yeelay arrintaas iyada waxa lagaga ballamay oo la gooyay ciidii falka ku shaqo lahayd oo ka qayb qaadatay in sharciga la horgeeyo la soo waxaan kaloo u sheegaynaa bini'aadamka sidiisa dadka mas'uuliyaddu waxay ka bilaabataa guriga walayaashu waxay mas'uul ka yihiin gurigooda iyo ciyaalkooda dadkooda quraanka waa inuu ku sheegay mas'uuliyadda la israaciyana baa ka mid tahay waxa loo baahan yahay cid walba inay mas'uul ka noqoto dhalinyarada ka mas'uul ka noqoto ciddii dhib samayso la waayo waxa loo qabanayaa waalidka waa sharci waalidka loo soo qabanayaa kii la waayo oo intuu dhibtaas sameeyay la waayo laakiin waxaan rajaynayaa dadka hadda meesha jooga khiyaarta meesha joogta iyaga laga horeeyay inay amniga ka shaqeeyaan inay soo qabtaan wixii dhibta wada waxaan codsanaynaa intaasina aynu fududeyno oo sharciga geeyno wixii dhibta geystay wixii dambeetana aanu iska kaashano amniga si aynu uga wada shaqeynayno oo ilaalino waxaan u jeednaa hadda waa la socotaan dadku tip-topka iyo balaayada iyo waxa la akhriyayo waxa inaga in qabta ma waan ognahay waxa la wixii halka joogo oo tip-top gali wax galiya waa la qabanay dadka xumaan halka ka shaqeeyo tip-top galiya oo dib abuura oo dadka kiciya oo wax dhibaato oo laga gaxla sameeyay waa la qabanay haddaanu sheegina kuwa wax galiyay iyo kii dhib sameeyay isku mid waa la soo qabanay taas ciidamada waa maqalaya qaybtii waa joogtaa dadkaas hal qof ma maraka kullu dhamaantood in la soo qabto oo sharciga loo keeno ka shaqeeyo la shaqeeyo fududay waxyaabaha qorayana sidoo kale waa la soo qabanay hadda intaas horta taas aanu kale lahayn oo waa dhacdada halkaas ahayd inaga waxay noo yaalmaa Nairobi waxa ka dhacay garowe waxa ka Nairobi waxay leedahay dawlad waxay leedahay odayaal dadka halka wada fadhiya wada degan yihiin wixii dhexdooda maraya ku filan ka waa hadlaan xashaalile halkeen la kalma in dib la dhibo dad halkan jooga ama hawshaas la keeno halkan ma dadku noloshiisu inuu jeebo nin walba noloshiisu loo soo baxo amaan helo uu shaqeysto kii bayad ku shaqeysanaya kii wax kale ka shaqeysanaya amnigiisa waa in dawladda balqa dadku waa inuu amniga cidii amniga waxay sheegayaan waa in gacan bir lagu qabto la soo qabto lamaantiina ka wada shaqeyno sidii aynu amniga u sugi lahayn wixii fawaaxish ay wixii ceeb ay wixii dhibaateena ku wanaagsan si ka qaban aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan idinku darmaanayaa inaynu ka wada shaqeyno amniga ila wixii xun iska qabanno ila danaheena iyo horumarkeena ka shaqeyno waxa u gaari karnaa horumarkeena iyo danaheena iyo nolosheena inaan ka shaqeysano waxa weeye nabad iyo taxgelin iyo shaqo iyo inuu jeesho dadkeena waxay xun aynu ka hadlo intaasaan leeyahay ciidamada amniga waxaan leeyahay in la intii
hawshaa ku shaqo lahayd iyo intii ka qayb qaadatay ha la soo qabto intii ku hawl jirto dabeetana ha loo kuurgo ha la qabto intaasaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa ikhyaartu si ay u hadashay odayaashu iyo sidii xaragada ay u soo dhoweeyeen dhacdada uga hadleen iyo sidii hadda u ballan qaadeen in nabadda ka shaqeeyaan sidaasaan waxaan leeyahay